maryan markay cagaha wax ka dayday ilaa saacado dhowr ah ma joogsane waxay isugu bixisay orod aan kala go' lahayn iyadoo u sansaan eg qof inta baydaday xargagoosatay xabsina ka carartay in muddo ah markii ay sii baydadaysay ayay mar dambe xistay inay carri cidlo ah jeexayso ayna marti u tahay libaaxii dadqaadka ahayd horayna meeshuba u buuxday way istaagtay oo wax dhegaysatay meel kasta sharqan iyo buuq ama hugun ayaa uga baxay baqdintay baqaysay iyo harraadkii dhegajeexay dartood wakhtigu waa gudcur aan waxba la arkayn hadba dhan bay u jeesatay waxay kala garan weysay meeshay ka timid iyo meelay u socoto way dayowday iyadoo iska jahwareersan oo baqdin daraaddeed socon la joogsanna la ayay mar dambe maqashay libaax cidii intay qabowday oo qamandhaco ama jiriiraco lagu jejabiyey bay in cabbaar ah wax dhaqdhaqaaqa iska weysay mar dambe oo libaaxii cidii yareeyey ayay miyirsatay dhankuu ka ciyey mooyee dhankii kale ayay isku qaadday muddo saacada beeyan kala goyne orod ugu jeexaysay sayrmada laabmaha qodaxda mudaysa xagashada qoryaha qallalan jalfinta kurtumada iyo dhagxaanta turaanturada iyo kufidda ku dhacaysay waxay ahaayeen kuwa tiro beelay ha yeeshee ayaan iyadu dhibaato u arkaynin waxay baydadkaas irdaha furan ee aan meel lahaysan la sabaysaba ayay mar un istaagtay si ay jabaq u dhegaysato dad iyo dugaagba waxba maqli weysay meeshaydii ayay ka miistay waxay orodaba mar dambay joogto inay dhacdo ayay goosatay inay indhaysato geedo dhaadheer oo ay dugaagga ka fuusho maxaa yeelay sheekay ku maqashay in marka bahalaha laga cabsado geedo dhaadheer laga fuulo kol dambe ayay ku soo baxday geed dheer oo istiri allay leeha dhaafine fuul dusha ayay uga baxday geedkii dhibaatase waxay timid markay lulmooto yaa ku haynaya geedka iyadoo sii lulmoonaysa inay seexatana u dhow baa waxaa soo yeeray cid libaaxi aad mooddo inuu ordayo hurdadii ayaa ka duushay inay dan u ahaydna lagaba yaabee libaaxii wuxuu soo caddaadaba waa soo dhowaaday mar waa aamusayaa mar dambe ayuu haddana ciyayaa isagoo aad mooddo inuu ka sokeeyo meeshuu awal ka ciyey waxay sidaa ahaataba mar dambe ayuu laba soo wareegay goobtii geedka maryam fuushan tahay ku yiil si kedis iyada ku noqotay ayuu mar aanu ka fogayn agteeda af labadii yeedhay naxdintay naxday markay soo faniini gaartay ha yeeshee intay laamahay haysatay xajisatay bay isha un ka eegtay wakhtigu markaa waa goor dambe dayax ayaa soo baxaya oo cir daruur ka maran soo dhex jeexaya dhanka dayaxu ka soo baxayo ayuu libaaxu ka xigaa iyada mar unbay aragtay libaaxii oo inta kobtii madaxa kala soo baxay dhulka sanka la soo raacaya sina aad mooddo inuu u degdegayo waxaa isku dhacay dayaxa nuurkiisii iyo baabushii badnaydee caddayd taasoo u suuro gelisay maryan in markii ugu horraysay ay ka ilsugato libaax aragtidii way sii naxday waxayna ku sigatay in wadnuhu istaago naxdin darteed libaaxii oo daqaf leh ayaa geedkay fuushanayd la soo wareegay isagu sanka dhulka kama qaadayne oo raadkeeda ayuu ku joogay sidii waxanaaqay buujeenyaha dhulka ku xoqay libaaxaas ayaa inta sidii wax fariisanaya beerka dhulka dhigtay jeenyahana hore u bixiyey wuxuu isku dayey inuu ogaado qofkuu ceyrsanayey meeshuu geedka ka saaran yahay isagoo sidii wax jiifo ah ayuu kor iyo geedkii soo eegay uu soo eegayey maahee haddiiba isha ayuu ku dhuftay maryan oo sidii calal dhammaadee hirigi la hartay meel aad isaga uga fog laan ugu maran maryan iyadoo geesa leh timaheeduna qodaxa yihiin ayay si buuxda dhaqdhaqaaqiisa indhaha ugu haysaa labada gacmood waxay si buuxda ugu haysataa laan ay xabadkana ku haysee agteeda ah iyadoo rakaysatay salkana ku haysa laan laba madax leh meeshay ka kala kacdo waxay jeclaan lahayd inay haad noqoto sidii shimbiraha meeshaas yaabka leh ay ku xayiran tahay si ay si sahlan uga hadaafto يعني معلوبة دلكوبها المالية هاي الله هايو
lama malaysanine idhiyo bixi iga bixi allahayo isagii markuu arkay inay adag tahay si loogu tago ruuxa isaga ah uuna ogaaday maadaama uu yahay bahal dadka aqoon u leh in qofku aanu sidaa u weyneyn ayuu isku dayay inuu bajiyo waa intaasoo intuu kala bato bardado uu soo dhacaaye wuxuu ahaa bahalkaasi mid inta libaax weyn yahay weyn dhogorta guudka baabusha iyo haylimaha ku yaalna ay tirabeeleen aad buu u dhisnaa una lixaad weynaa surkiisa hilibka saaran iyo xoogga ku jira daraaddii awood umuu lahayn inuu isagoo taagan kor eego sidaa daraaddeed kor markuu eegayo waa inuu u seexdaa isagoo meesha baraaqa maryanna eegaya ayuu inta afkii laba ka kala dhigay intuu awood lahaa gurxan iyo gunuunuc ooda ka soo qaaday uma sii sugine intuu kor u booday wuu sidii wax geedkaba samada ku callaqaya cidiyo aad warma moodo intuu surtay gilgilmaagay cirkii iyo dhulkii ayaa qaylo iyo sharqan isqabsaday geedkii baa dhaqdhaqaaqay maryan baa intay itaal lahayd waxay isugu geysay laantay haysatay nasiib wanaag ma ay soo dhicine meesheedii bay ku mitiday inay la soo jiifto iyada cabsi iyo qiyaamo u haray ma jirin waxay ugu muuqatay in dhulku wada gariirayo dabaylo iyo duufaanna dhacayaan ciiddu dhaqaaqsan tahay adduunkana gogashiisa loo laabayo aan wax harayaa jirin haba yaraatee meel loo irkado ama ciirsi la bidaa uma ay muuqan nafta oodaysa unbay sugaysay muuqaalkeedu wuxuu ahaa qof inta awalba itaal la'aa haddana tan dhex galay madax yaree laba indhoodoo galka ka baxsan oo araggoodu ama daymooyinkoodu meel keliya haysto af laba daan noqday luqun aad moodo in kol hore naftu daysaye qallalan bay la soo qotantay libaaxii markuu cabbaar meeshii gilgilay siduu rabayna ay u noqon weysay oo maryan soo dhici weysay wuu inta jijimicsaday ilka aad moodo qoryo miibac ahoo meel ku rarnaa muujiyey carab aad moodo sanbab cabbaar kowraxsanaa intuu hadba dhan u eryey shaarbahana marsaday wuu tartiib sidii wax tegaya u sii tallaabsaday